kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan soo galay waa barnaamijkeennii subaxnimo waa barnaamijkeennii koobaad taariikhdu waa 13 bisha 7 2016 haddaba barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa xaaladda bariga dhexe dagaalka culus ee u dhexeeya Iiraan iyo Mareykan haddaba maxaanu ka bilaabaynaa haddaba xaaladda saan shalay ilaa xalay ka hadlaynay dagaalka wuxuu ku saabsan yahay gacan ku dhigidda iyo maamulidda marinbiyoodka Hormuz dagaalku waa ujeeddo badan yahay mar walba hadaf iyo ujeedo leeyahay dagaalka waa inaan fahamnaa dagaalkii hore Mareykanku February 18 iyo Israa'iil ay Iiraan ku qaadeen waxay ahayd xukunka markaa jiray in madaxdiisa la dilo meesha laga saaro waxay ogaadeen inaysan suuragal noqon karin hadda marka dagaalkan maxaa waay dagaalkan Mareykanku wuxuu doonayaa inuu cadaadis ku saaro Iiraan inay gacmaha ka taagto Hormuz oo ay tiraado sidii hore ha iska noqdo cid kasta ha iska marto marka gacan ku haynta la isku Iiraan waxa leedahay wax kasta hadday dhacaan meeshan wax soo mari kara ma jiraan oo aniga aan amar siinin marka ujeedada dagaalka ugu dambeeya hadda socda waa kaas gacan ku haynta Hormuz cidii maamuli lahayd waaye shalay ilaa xalay jugta la isku hayay waa taa idin sheegay Iiraan inay garaacday ilaa 6 wadan oo Caraba saldhigyo uu ku lahaa Mareykanka waxay soo kale Mareykanku iyaguna duqeeyeen meelo badan oo kamid ah gudaha dalka Iiraan ilaa 200 oo goobood in ka badan ay sheegeen inay duqeeyeen marka dagaalka marka hadda wuxuu u dhaxeeyaa Mareykanka iyo Iiraan Israa'iil banaankii ka joogtaa wali ilaa hadda ma jiro war sheegaya Israa'iil in dagaalku soo gashay laakiin Mareykan iyo waxa is haya iyo Iiraan ayaa hadda is haya saaki marka maxaa dhacay saaki aroortii Mareykanku waxay yiraahdeen 20 markab oo kuwa ganacsiga ah ayaanu xoog ku gudbinay marinbiyoodka Hormuz Iiraan waxay ku soo riday gantaalo iyo drones diyaaradahan kicinay waa ka hortagnay gantaalihii waa qabanay maraakiibtii orda gudba saas waa gudbinay Iiraan waxay tiri wax ka jira male waa beentiis adduunku ruwaayadina u jiro meeshan cid mari karta mare marka sheekadu marka halkaas ka bilaabatay hadana saaki markii inta ay dhaceen oo la farasaaray ayaa Mareykanku weerar culus aroortii saaki markale wuxuu ku qaaday Iiraan haddaba marka aan tuso sheekadu saaki marka meesha ka bilaabatay Al Jazeera waxay leedahay Mareykanka ayaa weerar culus waxa uu ku qaaday dhowr goobood oo gudaha Iiraan ka tirsan mas'uul ka tirsan gobolka yiraahdo Khuzestan ee dalka Iiraan ayaa sheegay 2 goobood oo gobolka ka tirsan in markaa weerar lagu soo qaaday waxa soo kale la soo weeraray magaalada yiraahdo Ahwaz ee ku taala koonfur galbeed ee wadanka Iiraan waxaana la sheegay in halka madaafiic lagu soo garaacay waxay sheegeen mas'uuliyiinta Iiraan cadawga Mareykanka inuu halkaasi weerar ku soo qaaday wakaaladda wararka Iiraan ee yiraahdo Mahr ayaa sheegtay saakay in markaa weerarada cadawga la iska dhiciyay oo markaa laga hortagay sida ay yiraahdeen oo waxay sheegeen in markaa Iiraan ay si weyn isku difaacday waaye marka sheekadu marka halkaas maraysa Mareykankii marka weeraro soo qaaday wuxuu isku dayay sida uu sheegay inuu marinbiyoodka Hormuz xoog maraakiib ku gudbiyo macnaha saakay weerar uu soo qaaday Iiraan marka shalay ilaa doraad gantaalaha ciyaalka xaafadda kaliya isticmaalaysa macnaha kuwa jugta culus lama soo saareen saakay marka waxa la isticmaalay gantaalihii dhulka gariiraal dhulka saasa bariga dhexe waa gariiraal saakay nimankii Iiraaniyiinta ahaa waxa ay ku dhigeen saldhigyada Mareykanka markii uu weerarka soo qaaday Hormuz rooy inuu xoog wax ku dhaafiyo ayaa alaabtan marka lala soo baxay jugta culus marka aan tuso jariirada la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa qortay warbixin ay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadoodu ay isticmaaleen saakay sawaariikhda plastiga nooca la yiraahdo Qaadir iyo Imaad iyo Khaybar Shakin la yiraahdo
iyo sidoo kale gantaalka halista badan ee la yiraahdo Fatih 110 kuwaasoo ay ku bartilmaameedsadeen sida ay sheegeen saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Urdun iyo Qatar iyo waliba saldanada Oman waayahay alaabtan marka Fatih 110 iyo Qadir iyo Imaad iyo alaabtii Israa'iil lagu garaacayo wadamada Carabta drones iyo alaab kale gaagaaban loo diri jiray hadda marka Iiraaniyiintu waxay leeyihiin Mareykanku toos uu nooga soo weeraraa dalalkaas marka hore shaki jiray annaga hadda waxay yiraahdeen dalalkaas uu noo soo isticmaalaya toos nooga soo weeraraya marka maxay isku kaana dhaamaan Israa'iil iyo wadan kale oo isaguna nala ka soo weerarayo anaka toos naloo dilay marka waxay isku kaana dhaamaan kana uu dilaya kana waa dilaya marka saakay marka waxa la soo baxay gataalaha Qadir iyo Imaad iyo Khaybar Shakin iyo Fatih 110 alaabtii sida baartay Moscow kale u socotay alaabihii jugta culusla ayaa saakay baartay meesha la isku faagtaa la leeyahay waayahay markay xaalku marka halka marayo oo wadamadii khaliijka ay qaylinayaan war annaga islaam ma nihiino maxay shaan Iiraan noogu galaysaa Iiraan marka waray soo saartay haddaba marka aad tuso war ku socda dawladaha khaliijka la soo saaray saak haddaba marka waxa leeyahay Iiraan waxay ugu baaqday dawladaha khaliijka inay joojiyaan kaalmada ay dhulkooda ku kaalmaynayaan oo ay u ogolaanayaan Mareykanka inuu weeraro kaga soo qaado Iiraan halkaas afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u diray warbixin arrinkaas qaramada midoobayna way u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan waxay tiri annaga wadamadan waxaan u weeraraynaa arrinkaas marka waa inay joojiyaan waxa leeyahay ila tawaqquf an taqdiim araadiha in dhulkooda la isticmaalo ha joojiyeen annaga waxba kuma dhufareen Mareykan inuu dhul helo way markuu soo weerarana maraakiibtiisa kaliya ma ku filna marka waa in meel dhul ah iyo saldhig ah oo inta helo uu naga soo weeraro hadii diyaaradiisa la weeraro oo gantaalo aan ku ridno oo dhuumana diyaaradda waxay ku degay meel kale markabkii ma ku noqonayso marka waxay yiraahdeen meeshan annaga sababta aan u weerarayno dalalkan waa arintaas waa inay joojisiin adeegsiga Mareykanka uu adeegsanayo marka dhulkaas saas waa leeyahay marka xaalku marka halkaas uu marayaa saakay mar kale ayaa jugta la iska geliyay dhagaha la iska garaacay wax waana miyay socdaan maya ilaa hadda waan gooniyo socoto oo wax lagu joojinaa ma jiraan dagaalka wuu socdaa wuxuu u dhaxeeyaa Mareykanka iyo Iiraan wuxuuna ku saabsan yahay cidda maamulaysa marinbiyoodka Hormuz dagaalka dawladda la ridaa iyo kan iyo wala iskala soo tagay hadda waxa la maraa meeshan maraakiibta marayso yaa maamulaya Iiraan waxa leedahay ana amiir Mareykan wuxuu leeyahay waa ana amiir marka ana amiir wa anta amiir maraysa hadda meeshan nin walba amiir uu sheeganaya ilaa la kala haro oo dhagaha la iska garaaco wax soo haraa mare marka dadkii kale oo qaraabada ahaa meesha deganaa ha sheegin wax annaga meeshan wax kule xataa dhigi kara mare macalinka weyn iyo waxa ku dagaalama Iiraan bis carabtii kale waa kuwan jugta lagu hayaa ayagana meesha daris la marka xaajadu marka saakay halkaas ay joogtaa wixii warar marka ku saabsan dagaalkan iyo alaabtan jugta culus ee lala soo baxay waa sii wadi doonaa barnaamijyadeeda soo socda wixii cusub aan idin keeni doona hadii Allah qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena saakay waxaynu ku soo qaadanaynaa bishii la soo dhaafay 20keedii ilaa 28keedii ilaa bishan hadeer waxa la sheegayaa dad ku dhow 10,000 oo qof inay Yurub ku dhinteen waliba maxay u dhinteen kulayl daran oo Yurub aysan weligeed arkin ayaa maartay ay la kulmeen malaha jahannamadii ayaa Yurub lagu soo dhaweeyay iyagu laakiin waxay leeyihiin cimilada oo isbedeshay waxba sheegayaan 10,000 oo qof waliba maxaa dhacay Faransiiska oo kale kaymihii kaligooda gubtay kaymihii maartay geedihii meelihii ku yaaleen kulaylkii inta ka batay geedihii
ayaa dabka ka wada kacay dhowr milyan oo qof ah looga digay inay guryahooda ka cararaan dadka dhintay marka maxay isugu jiraan dadka 65 ka badan boqolkiiba 90 waayo 65 jir wixii ka badan ayaa 10 kun ugu badan dadka dhintay oo Yurub ku dhintay waa dadkii waayeelada ahaa waaye waxaa sidoo kale jira dad kale oo xanuunsanayay oo iyaguna kuleylka dartii u dhintay waaye su'aala marka meesha imaatay waxaa la leeyahay waa Yurub dadka kuleyl ugu dhimanayaan kuleylka Yurub oo mar kaliya soo baxa inta kale waaba qaboobe dada ma birihii sanadka badankiisa dhan kuleyl yahay konton 40 gaara khaliijka iyo meel kasta waxba ku dhintayna lama lahane sababtu maxay tahay waa su'aal moogtaa la isweydiinayo waaye marka nin khabiira wuxuu leeyahay oo la wareysanayay wuxuu dhahay dadkan kuleylka way ku talagalsan yihiinoo markay albaabka ka soo baxaan gaariga ay raacaan qabow u shidan way ka degayaan dukaanka ay galaan qabow u shidan way soo adeeganayaan way soo noqonayaan guriga ay yimaadaan qabow u shidan way ku talagaleen dadka kuleylkaas inay markaa iska caabiyaan laakiin Yurub wuxuu dhahay guryahooda waxay ku talagaleen bas qabow inay iska dhiciyaan kuleylkii u yaala bas markuu qabow yimaado guriga alaabtii lagu kuleylaa bas taala wixii lagu qaboojin lahaa dhib yaalaan marka odagii waayeelka markuu laba mar kuleylka dareemo neefta ku dhageys khalaas waaba ka tagtay baashi marka sheekadu marka halkaas ay maraysaa weyn haddaba markaan tusoo warbixin faahfaahsan oo Al Jazeera ay ka qortay sheekada Yurub ka taagan Al Jazeera waxay ciwaan uga dhigtay waxa leedahay 10,000 in ka badan ayaa ku dhimatay Yurub mawjad kuleyl oo ku dhuftay qaaradda Yurub waxaana hadda jira xaalatu ta'ahub waxa la yiraahdaa macnaha xaalad degdeg ah oo qatar ah ayaa ka jirta Yurub kuleylkaas dartiis dadkii marka nafta haysa waa la yaaban yahay Jarmalka oo kale Al Jazeera waxaan arkayay baabuurtii loogu talagalay damdamiska dabka inay damiyaan oo biyaha meelaha gubanay ku furaan biyihii ayaa dadkii banaanka isugu soo baxay ku shubaya biyihii dad waxa mudaharaad markii dadka lagu kala ceyrinayo biyo lagu shubaa dadka way kala cararayaan hadda biyihii inta la soo qaboojiyay dadkii lagu rusheynaya banaanka inta soo baxaan oo shaararka dhigtaan saas loogu shubaya marka kuleylkaas ayaduna la sheegaya 10,000 oo qof inay dhimatay 2 bil iyo xoogaa gudaheed kuleyl dartiis waa number aan hore u soo marinaa leeyahay Yurub waa ku daayay kuwaas barnaamijkaygii waa laga taa asxaabay wixii cusub oo soo kordha hadii alla idmo barnaamijyada dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa inta aan mar kale kulmayno meel kasta oo naga daawanaysaan asxaabay like gareeyo share gareeyo barnaamijka nabadgelyo